imaam masjid oo ay ka kala carareen jamaacadii uu salaada tujinayay masjidka. si aan ugu dagalno muuqaalkan walaal waxaanu kaa codsanaynaa inaad like saarto muuqaalkan share gareysa si saaxiibo badan u gaaro sidoo kalena aad ku soo biirto page-kan Cabdikariim Cali Aadan mahadsanid in badan. imaam masaajid oo salaad tujinayay jamaacada masjidka ayaa waxaa halkaasi ama masjidkii ay uga dhex carareen imaamkii salaada tujinayay jamaacadii masaajidka xilli ay salaad ku jireen imaamka masjidka iyo sidoo kale qaar ka mid ah jamaacada masjidka ku xiran ayaa waxaa hal mar magaalada uu ku yaala masjidkan oo ku taala dalka Indonesia waxaa ku dhuftay dhulgariir xoogan oo saameyn ku yeeshay masjidka imaamka iyo sidoo kale jamaacadii masaajidkan ku tukanayay halkaasi ama dalkaasi oo inta badan ka dhacaan dhulgariiro saameyn ku yeesha dadka iyo dunyada dalkaasi. kadib markii uu daqiiqado socday dhulgariirka oo awood badnaa ayaa waxaa imaamkii iyo jamaacadii masjidka ay qalqaleen iyadoo qaar ka mid ah jamaacadii masjidka oo u adkeysan kari waayay awoodda dhulgariirka iyo baqdin ay ka qabaan in uu masjidka soo duumo ay kaga carareen masjidka imaamkii salaada tujinayay iyo sidoo kale qaar ka mid ah jamaacadii masjidka iyaguna ku tukanayay ee imaamka ay salaad ugu xirneed iyagoo bannaanka uga baxay masjidka salaadii ay tukanayeenna ka cararay. dhinaca kale imaamka ayaa markii uu dhulgariirku bilowday waxa uu bilaabay akhrinta aayatul kursiga si uu ilaahay u xifdiyo oo aysan dhulgariirkan wax uga soo gaarin. sidoo kale imaamku waxa uu isku celinayay derbiga masjidka maadaama uu dhulku gariirayay si uusan halkaasi ugu dhicin. waxaana sidoo kale iyaguna dhankooda is adkeeyey qaar ka mid ah jamaacadii masjidka iyagoo isgarabsanaya ninba ninka kale celinaya si aysan dhulka ugu dhicin iyadoo safafka qaar dadkii ka baxay ay jamaacada masjidka iyaguna dhankooda buuxiyeen oo dadkii gadaal ku tukanayay ay horay u soo buuxiyeen sufuufta masjidka. waxaana markii ay salaada ka baxeen oo faralkii alle ay iska gudeen jamaacada masjidka iyo imaamkiiba ay markaasi ku duceysteen halkaasi si uusan ilaahay mar kale ugu soo celin dhulgariirkan saameynta ku yeeshay masjidka iyo guud ahaanba dalkaasi. waxaana dhacdadan oo ka dhacday dalka Indonesia ay qabsatay baraha bulshada ee caalamka wadamada Aasiya iyo sidoo kale Carabta iyo Muslimiintaba. waxaana ay dad badan wax laga xumaada ku tilmaameen in dadka ama qaar ka mid ah jamaacadii masjidka xilli ay tukanayeen ay markaasi salaada isaga carareen iyadoo aan loo baahnayn in markaasi salaad kasta oo la tukanaya haddii aysan sunno ahayn in markaasi aan laga bixi karin iyadoo dhanka kale ay badbaadeen jamaacadii masjidka ku hartay ee salaada tukanayay iyo sidoo kale imaamkii masjidka.